waddan kasta adduunka ku yaala wayna wada ognahay inuu leeyahay dan xun iyo dan wanaagsan maanta muuqaalkeenan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa dhowr qodob ama dhowr shay oo aan u arkay inuu kaga wanaagsan yahay waddanka Jarmalku dama aad iyo aad tiro badan oo ku yaala adduunkan aynu ku noolahay kusoo dhawaada muuqaalkeenan maanta nadi leeyahay isoo raacay dhamaantiin aynu soo wada aragnay qodobadaasi waxay yihiin qodobkeena ugu horeeya wuxuu noqonayaa qaadashada sharciga weyn qaadashada sharciga weyn maxaan ka wadaa sanadkii hore la soo dhaafay ay waxa baarlamaanka waddanka ansixiyay in la bedelo sharcigii hore ahaa in qofku marka uu joogo 8 sano kaliyaato marka loo ogol yahay soo codsado sharciga waddanka Jarmalka ama baasaboorka waddanka laakiin sanadkii hore ina dhaafay ay waxa baarlamaanka ansixiyay in uu qof kasta soo xareysan karo 3 sano ka bacdi ama 5 sano ka bacdi dhalashada waddanka Jarmalka sabab jira daraadood waddankan ay waxa uu yahay sidoo dhamaanteen waxaan filayaa badan aad maqashaan inuu yahay waddanka Yurub ugu dhaqaalaha badan leh ama dhanka markay noqoto dhaqaatiirta uu yahay lambarko ama dhanka caafimaadka markay noqoto marka waddankani sidoo dhaqaalihiisa uu ahaado mid maalinta ka dambaysa si kobca waxa uu waddankani sanadkii hore ayna soo dhaafay hirgeliyay sharciga noqonaya ama sharciga sheegay qofkii inuu 3 sano ka bacdi ama 5 sano ka bacdi uu codsan karo dhalashada waddankan ama baasaboorka Jarmalkan qodobkeena labaad wuxuu noqonayaa in waddanka Jarmalka uu yahay caafimaadku bilaash ama uu yahay lacag la'aan ama firi uu yahay maalinka aad u baahato caafimaad ama daaweyn ma tihid waddanka Jarmalka qof maalintaas ka warwaraya haddii noqoto lacagtii iyo wixii la halmaan sababta daraadeeda waddankan qof kasta oo ku nool oo aan ka ahayn qofka homeless ka darbiyada ama dariiqyada jiifsadahay qof kasta oo ku nool oo sharci ama meel uu dego iyo guri uu daga haysta ama address ama cinwaan guri haysta caafimaadka waddankani waa free haddii aad tahay arday haddii aad tahay shaqaale iyo haddii aad inta mid toon aanad ahayn waddankan Jarmalka ma tihid qof ka warwaraya maalinta alla kama dhigay caafimaadkaaga ay dhibaato soo gaadho maalintaas ma tihid nin ka fakaraya meel aad lacag ka keentay sababtoo ah waddankan caafimaadkiisa gabi ahaantiiba dadka lagama qaado wax lacaga dadka shaqeeyay laakiin waxa laga jaraa waddankan ay ku noolahay Jarmalka cashuurtaas oo ku saamaxaysa maalintaas aad u baahatid caafimaadka ama aad u baahatid dhakhtarka in maalintaas aan laga qaadi doonin wax lacaga qodobkeena xigaya waxa uu noqonayaa dhanka waxbarashada waddankan Jarmalku heer KG ama kindergarten wax loo yaqaano ilaa heer jaamacadeed waa free ma tihid mid ka warwaraya fiiga ama lacagta aad ku bixinayso waxbarashada haddaad noqoto arday ahaan iyo haddii aad waddanka joogto oo aad dhashay ama aad tahay qof qoys leh ma tihid mid ka warwaraya waxbarashada iyo tacliinta ubadkiisa sababtoo ah waddankan ama dawladda ayaa kafaalo qaaday waxbarashadiisa arrintaas ah in waddanka waxbarashadiisu free tahay ay waxay u horseeday waddanka Jarmalka inuu noqdo waddan soo jiidasho leh oo ay ku soo hirtaan dadyo aad u fara badan kuwaas oo doonaya haddii noqoto dhanka waxbarashada ka faa'iideysanaya ama haddii noqoto kuwa dhanka shaqada ka faa'iideysanaya oo doonaya carruurta mustaqbalkooda carruurta dhaleen ama qoyskooda ama kuwa mustaqbalkooda dhali doonaan ay uga faa'iideeyaan fursadaas taasina waa qodob ka mid ah qodobada uu ku wanaagsan yahay waddankan Jarmalku qodobkeena xigaya wuxuu noqonayaa ama waxa kale uu ku wanaagsan yahay waddanka Jarmalku inuu waddankan yahay mid bila musuqmaasuqa ama mid xafiis kasta oo aad gasho lagu weydiinayn lacag ama lagu weydiinayn inaad bixiso lacag si ay arrinta xafiiska aad ka rabtay ay u hirgasho ama ay u socoto ama aad u hesho in xafiis kasta oo aad gasho aan lagu weydiinayn lacag ama lagu weydiinayn rashwa waxa loo yaqaan ama ay tahay bila musuqmaasuq oo arrinta aad xafiiska ka rabtay haddii noqoto mid dawladeed haddii noqoto mid bareefad oo labadaba lagu qabanay sida ay tahay waxaan xasuustay waddanka Kenya marka la joogay ay waxa la oran jiray Kenya iyo Kistaya waddan aad u fiican laakiin dhibaatada waddankaas haysata ma taqaanaa ee waliba Soomaalidu ugu wacanta cid kale ugu ma wacna waxa ugu wacan waxa la yiraahdaa laaluushka fadlan waxaan rajaynayaa Soomaali Maxamed meel kasta oo adduunka ka joogtaan in aad joojisaan lacagtan ama laaluushkan meel kasta oo adduunka joogto idinka soo horeynaya waxaan arkay wiil maalin dhexdaas aan ka akhrisanayay boggiisa Facebook oo ku leeyahay waxa la yiraahdaa wiil Axmed Kadiya la yiraahdaa wuxuu waxaan tagay Morocco markaas uu ka soo galay madaarkii ninka asariga wuxuu bilaabay ammaan buu igala dulcabay Soomaalidu waa sidan waan yaabo ninkani amaanta ku kala dulcayo maxay markii uu wadiba markii dambe ugu riday soo taag lacagta soo dhib marka dhaqan fool xun weeye dhaqan aad u fool xun weeye Soomaali hadii nahay aynu joojina laaluush meel kasta oo in adduunka joogno inaan barin laaluushka
oo aynu u soconno straight line aynu u soconno inaan ku wareegin laaluuskan iyo lacagtan iyo rashwadan iyo lacagtan aad kistan yaraad mar walba kaa soo horeysa waxaad xaq u leedahay qaado waxaad xaq u lahayna ha qaadanin marka qodobkana waa qodob ka mid ah qodobada wanaagga ah ee uu leeyahay waddankani marka qodobkeena xigaana wuxuu noqonayaa qodobka ah dhiraynta amaba cagaarka waxaan odhan karno waddankan aan joogo ee Jarmalku waa waddan aad iyo aad uga taxadira markay noqoto dhanka dhirta iyo cagaarka waxaa jira boqolaal kun baa jira oo beerood amaba aan odhan karno parks aan odhan karno kuwaas oo shacabka waa kuwa firiya oo ay xilliga ay doonaan iyo saacadda ay doonaanba iman kara qodobkeena xigaana wuxuu noqonayaa waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay waddankani dhanka gaadiidka amaba gaadiidka dadweynaha haddii noqoto tareen haddii noqoto bas iyo dhammaan gaadiidka dadweynaha uu isticmaalo waddankan waxa weeye gaadiidkiisa dadweynuhu mid aad iyo aad u nidaamsan kaasoo ku hirgelinaya maanta tuulo kasta iyo goob kasta oo waddanka ku taala inaad aad ku tagto gaadiidka dadweynaha tusaale ahaan kaarka ayar waxaad ku mari kartaa waddankan gebi ahaantii tuulo kasta magaalo kasta iyo meel kasta oo aad waddankan ku taala waad ku tagi kartaa bishiina waxa laga qaadaya 40 euro laga qaadaya marka waxaan odhan karnaa dhanka gaadiidku waa mid aad iyo aad u nidaamsan oo ah mid boqolkiiba boqol waxaan odhanayaa inuu 3 xaabano haya sababtoo gaadiidka waddankani inkastoo dhawaanahan cusub ay leeyahay dadka waddanka jooga waddanka Jarmalka jooga way og yihiin ama lagu dacaayadeeyay shirkaddan Deutsche Bahn shirkad tareenada qaabilsan weeyii ama gaadiidka tareenada qaabilsan weeyii in shirkadda lagu dacaayadeeyay inay tahay shirkad aad iyo aad wanaheeda ama xilliyada ay ku imanaysa ama xilliyada ay gobolada ku geynaysa ama uu yahay ayaamahan dambe lagu dacaayadeeyo in mid aad iyo aad habsan u yahay laakiin waxaan odhan karaa ilaa hadda anu haabano haya iyadoo ay sidaa tahay Soomaali badan laga yaabo inay iga soo horjeestaan laakiin waxaan haabano haya anu shirkadda Deutsche Bahn la yiraahdo tareenada qaabilsan haabano haya sababta daraadeed waddankani aad iyo aad buu yahay mid nidaamsan dhanka gaadiidka hadday noqoto iyo hadday noqoto dhanka basaska iyo dhan walba waa waddan ka dhisan baan leeyahay marka nala socdo baan leeyahay dhammaantiinba asxaabta dhammaantiinna waxaan idinka ilaaway horta inaad ku dhaha aad iyo aad baad mahadsantay qof kasta oo kanaalkan amaba muuqaalkan ama muuqaaladii hore loo soo dhaafayba like-ta iyo share-ta intaa midna aan ka hilmaamin commentigana nagu soo qoran waxaan ku leeyahay horta mahadsanid 100 iyo 100 jeer mahadsanid waxaadna gaadhsiiseen 1000 subscribe baadna gaadhsiiseen waxaan ku leeyahay mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba mahadsanid baan ku leeyahay sanadkan insha Allah tacaala waxaan hadafka ama goolku yahay 20 kun ma dhaha soo ka badiya 20 kun yarteen iyo 15 kun ma oranaya sanadkan inta gabagabadiisa waxaan rajeynayaa 15 kun insha Allah tacaala maaha wax weyn maaha wax idinku weyn hadii aad laakiin شيرتي لايك تي سبسكرايب منا انت نغا هلمامين مقالكن مانتا انتاس ku eegyahay intaan ku kulmi doono muuqaal xiga iyo khamiistan insha Allah khamiista xigta soo socota waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeliyo iyo adigoo migaaga iyo hadafyada nolosha aad ka rabto ka midho dhaalinayo oo maalinta ka dambayso ugu sii dhaweynayso ama ay talaabada aad qaaday ku sii dhaweynayso hamigaaga aad mustaqbalka ka leedahay dhamaantii waxaad rajaynayaa caafimaad qab waxaan idinku dhaafayaa ciao Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día